السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan dhammaan walaalaha igu xidhan aad iyo aad baan salaamayaa walaal meel kasta joogtiin waxaan ilaahay waqtigoona haynay waanaado waxaan rabaa inaan ila wadaago kelmadahan kooban horta ma ogtahay in mararka qaarkood aan dhibaatooyinka inagayna haysata aan inagu isku wacanahay oo jirto dhibaatooyin waliba inta badan ay nagu soo noqnoqdo oo qofka bini'aadamka ku soo noqnoqda oo qofkuna uu xal u heli lahaa balse aad moodid inuu qofku dhibaatadaas la qabsaday isaga oo mararka qaarkood hostage u noqda ama ku yani noqdo qof u afduuban dhibaatooyinka uu ku dhex jiro marmarka qaarkood waxaan dareemnaa in bila awood aan nahay oonan awood u heli karin inaan ka dhex baxno dhibaatooyinka aan ku jirno balse xaqiiqadu sidaa maaha ilaahay wuxuuna siiyay awoodo badan oo runtii aan isticmaali karno laakiin qof walba wuxuu leeyahay weakness point ama nuqta dacf taasoo u saamaxaysa in uu xal u heli waayo dhibaatooyin ku dhex jiro waxaa jira waxyaaba psychology ahaan aan iskaga dhaadhicino ee jirta oon inagu aan ugu dhex jirno xayndaabkaas inaan mar walba xayndaabka waxyaabaan iska dhaadhicino inaan u xirxirnaano inagu ee maskaxdeena ku jira laakiin adduunyada ma jirto wax aanan xal lahayn dib walba oo jirta xal ayay leedahay ilaahay mar walba wuxuu nasiiyay ikhtiyaarka iyada oo qadar ay tahay wax walba oo qadarka ilaahay aan aaminsanahay laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo doorasho ah waxyaabo badan oo ilaahay doorasho inoo siiyey awoodda inaan wax ku doorano inoo siiyay ayaa jirta oo inagu aan doorano laakiin anagu markay aan aragno inaan midalan aan doorashadaasi ay tahay mid qaldan aan mar walba nidhaahno ilaahay baa noo qoray wuu jiraa oo wax walba aad maraysid waa wax kuu qornaa laakiin waxaan lahayn awoodda aan inagu waxaan ku dooranay ama waxaan aan ku dooranay ayaan mar walba lahayn taa horta waa inaan ogsoonaano sidoo kale waxaa jira dadka qaar inay markaa tahay qof niyad wanaagsan oo niyad fiican inay dadka qaarkood ay ku arkaan yani qof waxba kala garanayn qof yani la isticmaali karo ama waxyaabada loo adeegsan karo qof adigoo wax badan arkaya laakiin aad mar walba jeceshahay wax walbood sameynaysid inaad niyad wanaag ku samaysid ilaahay dartii adigoo mar walba naxariis badan oo qof dhibaato ku dhacday ka damqanaya oo rabo qofkan inaad caawiso dariiqadii doonta ha noqotee bay dadka qaarkood u arkayaan wanaagaaga iyo naxariistaadaas ay ka qaadanayaan advantage ama faa'iido ay ka qaadanayaan fursad ay ka qaadanayaan ay adiga kugu dhibaateeyaan hadhow oo niyad wanaagaaga ad mararka qaarkood ay kugu dhacdo inaad ka qoomamayso balse ayna ahayn inaad ka qoomamayso oo adiga qofka niyadda wanaagsana ad mar walba aad xagga ilaahay ka helisid ajar iyo xasanaad iyo noloshaada ilaahay wax walba kuu fududaynayo dadka laakiin niyadda xun leh ee jecel dadka inay use gareeyaan ee jecel dadka niyadda wanaagsan inay niyadda ka dilaan ee weliba intooda badan niyad wanaagaaga ka xun iyo noloshaada si aad u nooshahay u faraxsan tahay sababtoo ah farxaddu waxay ku xidhantahay niyadda wanaagsan haddii aad qof niyad wanaagsan tahay oo dadka bini'aadanka la farxaya wanaagga kugula farxaya noloshooda kula farxaya qof maanta wanaag helay aad iska dhigaysid ka inaba inaad adu wanaagaa hesho ku farxaysid adu barakeynaysid adu maasha Allah aad oranaysid maasha Allah mar walba qofkaas Allah u barakeeyo runtii noloshaadu way ka farxad badnaanaysaa dadka ka naxa ama tarka naxa leh qofkii maanta waxala ka naxaya qofkii maanta la yiraahdo qofka hebel waxaasa u soo faa'iidadaas oo hal ama wanaagaas u soo hooyday ka naxaya qofkaasi isagu waa mar walba qofka ku dambeeya meesha ugu xun nolosha anu tusaalooyin badanna waan arkay nolosha dadka noocaasi inayna heer ma gaarsi laakiin adu haddii aad tahay qof niyad wanaagsan wax walba oo jeceshay niyadaada aad ka rabtid ilaahay wuu ku fududaynayaa taa horta waa inaan niyaddeena aan aaminsanaano anu waxyaaba aan runtii hadalkaa markaan lehna waa waxaan waaqacan arkay tusaalayaal badan aan soo arkay runtii ayaa hadalkaygana ku salaysan yahay mar walba niyad wanaagsanow mar walba daacad ahaw adi daacadnimadaada ha lagu xumeeyo niyadda ha lagaa jibiyo waxyaabo badan
dhibaatooyin badan niyad wanaagaaga kaa soo gaaraan laakiin adu waxaa tahay oo niyad jaba laakiin adu waxaa tahay mar walba ka guusha leh mar walba waxaa tahay qofka guuleysanaya qofka hore u maraya qofka dariiq walba ilaahay u fududeynaya because ilaahay baa kula jira qof ilaahay la jira ayaa tahay waxaa tahayna dadka ilaahay jecel yahay laakiin dadku maanta u badan yihiin dadkeenu ama dadka Soomaalidu waxay walaha u bateen dad niyad xun qalbi xun yani qofkii ku qoslaya hadana niyada runtii kaaga dhagaraysan oo ku arki karin waxna qofka ku maadsameyn just qofkaas wuxuu ka xumaado oo noloshaada that's the only thing waxaad ku samaysay male dhibaataad gaarsiisay male qofka asaga bad caawinaysay adduunyada waxa ugu daran oo yani aad iga yaabiya ama la yaabka ugu badan wuxuu yahay in qof aad gacan siinayso aad caawinayso hadana adigii kugu noqonayo qof cadawgaaga koobaad oo kugu noqon uu ku arki karin wad actionkiisa marka dambe aad leedahay subxaanallah qofkan maxaan ku sameeyay waban caawinayay waban u niyad wanaagsana waxyaabo badan oo qofkaasi ama gafif badan oo ku geystayna aad iska soo cafisay wad cafiso fidisay oo mar walba asleeda bal qofkan ilaahay dartiis kaga daa hadana aad arkayso qofkiinu xumaantii ku sii socdo xumaanun mar walba oo kula damacsan yahay laakiin waxyaabaha adduunka kale in loo noolyahay baa yani in mar walba aad cashar ka qaadato dadka ku kala barato levelada dadka qof walba ku taagay aad ku kala ogaato wax badan ma torto ogaanaysaa nolosha waxay noqonaysaa inaad step by step aad dadka qaar aad marka dambe aad yani u samayso aad gaab iskaga samayso ama yani aad ka durugto intii aad u jirtay markii hore aad ka durugto haddii aad la tacaamulaysid still wanaag baad kula tacaamulaysaa laakiin waa inaad qofka ka durugtid runtii intaasaan jeclaaday maanta inaan nila wadaago mar walba niyad wanaagiina xajista mar walba daacad ahaada mar walba ilaahay ku xirnaada noloshuna in xumaan mayso mar walbana wanaag ayaad ku noolaanaysin iyo farxad aad baan salaamaya assalaamu calaykum